عليكم ورحمة الله وبركاته. dhacdo kale oo degdeg ah oo aan waxba doorin midii uu ku baxay wax yar ka hor aan la wadaagna faahfaahinteeda xildhibaan hore nin uu ahaa haddana la taliye ahaa oo meydkiisa guri laga dhaxlay mid lamid ah ayaa haddana dhacday. haweeney sida la sheegay ahayd dad isticmaala balwad ayaa meydkeeda laga soo saaray guri dhexdiisa degmada Hodan gaar ahaan waaxda Oktoobar bisha cas. gabadha waxaa la yiraahdaa magaceeda Sihaam waxaana la sheegay inay ahayd qof runtii isticmaali jiray ama lahaa balwado qaar. laamaha amniga ayaa meedka loogu yeeray oo hadda baaris ku wada. waxaana guriga oo gabar saaxiibteed ay lahayd laga helay meedkeeda ka sokow kaniin halisa oo baryaha dadka balwadaha qabatimay ee aad u isticmaalaan halisna runtii oo kiiskii kan ka horeeyayna ay laamaha amnigu sheegeen in ninka mas'uulka uu isticmaalay oo geeridiisa qayb uu ku leeyahay. kaniinkaas waxaa la yiraahdaa Billy Tramadol waxayna ku geeriyootay gurigan oo ay degan tahay gabar saaxiibteed ah. laamaha amniga ayaa xabsiga u taxaabay haweeneyda kale. cadaynta waxa aan ka hadlay Telegramka ayay taala iska hadal ma aha. qofkan siday u geeriyootay iyo sida ninka xildhibaanka hore ahaa ee hadda kiiskiisa gabadh u xiran tahay waa isku qaab. afka ayay uburka wada sii daayeen labadooda. ninka iyo iyaduba afka ayaa uburka socday. marka kaniinkan waxaa dareemaysaa inuu qatar hor leeyahay. waxaa ka codsanaa inaan la dheelsan karin. waxaan ka rabaa marka inaad meel dheer gaarsiisid qatarta kaniinkan Billy la yiraahdo waa uu soo saaidaya waana kordhaya. waxaana codsanaa in meel dheer aad gaarsiisaan hadduu Ilaahay karaal noqdo. waxaa hadda laamaha amnigu ay sheegeen inay baaritaan qoto dheer sameynayaan isla markaana mar dhow natiijada ay soo bixi doonto. natiijadaas oo lagu kala saari doono waxa saxda ka ah kiiskan oo runtii ay ugu horeyso bal qatartan qof kale miyaa gabadhan ku lug lahaa mase kaniinka ay cuntay ayaa sabab ah. sidoo kale hay'adda CID-da ee dambibaarista ayaa la xaqiijiyay iyaduna inay baaritaanka hadda bilowday. isbitaalka Madiina oo kiiska la gaarsiiyay ayaana soo kala saari doona xogta marjaca dambe ah ee cadeynaya bal sida uu wax u dhacay iyo xiriirka ka dhaxeeya falkan hadda kiisi labaad noqonaya ee kaniinkan la yiraahdo Billy uu lugta la galay. Billy Tramadol dadka yaqaan waxay sheegeen in qofka hadduu isticmaalkiisa badsado qatar inuu keeno. inta badan dhaqaatiirta waxay sheegeen in daawo ahaan qofka loo siin karo marka xanuunaad ay jiraan laakiin marka dambe haddii uu qabatimo waxa balwad uu noqonayo balwadaasna ay noqonayso daraagaas uu noqonayo wax qatar ah oo qofka naftiisa dhaafi kara. sida hadda muuqatana waa wax falkaas la lug leh. intii hore ula socod sheekada tan ka horeysay xildhibaanka gurigiisa waxaa laga helay ninka xildhibaanka hore uu ahaa hotelka uu deganaa kaniinkaas oo hal strip oo faaruq ah ayay laamaha amnigu sheegeen inay ka soo heleen. sidoo kale tana hadda gurigan waxaa loogu tagay si taas lamid ah isla noocii isla qaabkii. gabadha marka muuqaalkeeda fiirisid ama sawiradeeda aragtidna waxaaba toos ugu soo baxaya in wax aad uga tan weyn inay isticmaasho oo afka uburta ka socota iyo indhaha siday u daboolmeenba waa kaaf iyo kala dheeri.